السلام عليكم أصحابتا كحيران جنال كياتسي وسلامتين كسر هذا مقال عصب مقال كان وحان waxaad ku daawan doontaan sida end screen loogu darsado muuqaalka YouTube iyo update-ka 2020 macluumaad badan oo ku saabsan markaad end screen ku xirto muuqaalkaaga daawadayaashu waxay awoodaan inay daawadaan muuqaaladaadii hore iyo inay booqdaan YouTube-ka channel-kaaga xitaa qofka saaxiibkaaga channel-kiisa waa ku dari kartaa iyo muuqaalkiisa markoo daawadaha ku dhufto channel-kaaga sidaan ay ugu soo qoon doonaa wuxuu leeyahay visit channel ama muuqaaladaadii hore sidaas ay ugu dhufsan karaa oo daawan karaa waxaad gelaysaa Chrome ama browser midka aad isticmaasho kadib markaad gashid Chrome-haaga ama browser mid walba aad isticmaasho qeyd searching ayaad wax ku qoraysaa YouTube/features kadib markaad qortid sidaan ay kugu soo qabanaya qaybta ugu horeysa ayaad ku dhufanaysaa oo ku qoran tahay YouTube features markaad ku dhufatid sidaan ay kugu soo qaban doona kadib waxaad aadaysaa qaybta sare 3 dhibcood ee ku taalo markaad ku dhufatid waxaad ka dooranaysaa desktop side ayaad on leedahay markaad desktop side aad on dhahdo kadib waxaad ku dhufanaysaa profile-ka YouTube-ka ayaad ku dhufanaysaa madaxa markaad sidaas ugu soo dhufsato kadib waxaad aadaysaa 3 dhibcood ee sare ee qaybta gees ku yaalo markaad 3 dhibcood ee sare ku dhufatid waxaad ka sii dooranaysaa your videos markaad dooratid sidaan ay ku soo qabanaya muuqaaladaadii hore dhammaan midka aad rabtid ayaad ku xolanaysaa aad rabtid inaad end screen saartid muuqaalkaas muuqaalkaad sida u jeedaan hadda end screen ma saarno oo gadaalkiisa dambe waa iska caadi markaad waxaad ku dhufanaysaa edit video meesha edit video ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa edit video markaad ku dhufato waxaad soo aadaysaa qaybta geeskan sare ee ku qoran tahay end screen geedkan xiga end screen ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kadib sidaan ayuu kugu soo qabanayaa oo qaabka aad rabtid ayaad ka saaranaysaa shape aad rabtid ana qaabkaas ay ku dhufsaday hadda labada video mid ka mid ayaa waxa saaran playlist oo muuqaalada iskeenay waa iska bedelayna iska bedel ayaa rabaa oo video ay soo bedesho oo labada meel ay noqdaan video markaad rabtid inaad ku soo dirtid video waxaad ku dhufanaysaa meesha geeska xigta ee element ku qoran tahay kadib kan ayaad iska dileynaya sida meesha ku soo gashto sida markay soo noqoto marka arrow muuqaalna ku dhufto muuqaalka ay ku dhufanaa kadib qaybta geeska ay ku dhufanaa kadib muuqaalka ay soo tuurnaya
sidoo kale kan kale ay ku dhufanaya kadib waxaad ku dooranaya just videos muuqaalka kale ayaan rabaa ayaan kusoo dhufsanaya dhammaan sidaas ayaa u samaysan kartaa oo waxaad ku samaysan kartaa muuqaalo badan xataa waa soo gashan kartaa kadib save ayaa leedahay kadib hadda save ayuu ku yahay oo muuqaalada waa la daawan karaa